waa tahay khadka telefoonka ee shabakada khaatuniis waxaa ku jira garaad cabdirasaaq oo ka mid ah ismada beelweynta harti gaar ahaan beelweynta warsangeli oo ka mid ah ismada aadka gobolada sool sanaag iyo cayn guud ahaan maaragtay saameynta weyn ugu leh garaad soo dhow aad iyo aad waa dhawaay walaalkay qaali garaad xilligan lagu jiro ama maalmihii ugu dambeeyay waddanka Soomaaliya siyaasadiisu aad iyo aad bay u baaxad degisay waxaa jiray shirar ka dhacay Dhuusamareeb waxaa xigay ridista ra'iisul wasaaraha qaylo fara badan baa waddankii ka soo yeedhaysa ka madax dhaqameed ahaan xaaladan ugu dambeysay ee waddanka inagoo ku horeynana shirka Dhuusamareeb saad u aragtaan shirki waan ku salaamayaa marka hore waxaan halka ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan madaxda majaba waxaan salaamayaa dawladda haatan jirta mudane madaxweynaha ka yahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo golayaashiisa baarlamaanka iyo labada aqal oo golaha baarlamaanka iyo aqalka sare wasiirada ummadda Soomaaliyeed dhammaan waan salaamayaa waxaan rabaa inaan idin sheego oo idin cadeeyo wixii Dhuusamareeb ka dhacay inay ahayd face saving in wax lagu heshiiyay aanu jirin meesha la isugu yimi iyadoo waliba dadka Soomaaliyeed in la qalbi jabiyo la diidayo la qariyay in khilaaf lagu kala tagay inkastoo muddo kale la ballamay arrintaas Dhuusamareeb wax ka jiray ma jirin wax lagu heshiiyayna ma jirin waay arrinta Dhuusamareeb iyadoo taagan tahay dadka waxaa si lama filaan ah maaragtay ugu soo tooseen mooshinka yaala ra'iisul wasaaraha waddanka khilaafka huursan way adkay dadku inay aad u fahmaan hase yeeshee markii la riday ra'iisul wasaaraha dadka Soomaaliyeed siiba reer Muqdisho siyaabo kala duwan baa looga hadlay ka madax dhaqameed ahaan mooshinka ra'iisul wasaaraha dadka qayb sharci darro ku tilmaameen qayb way soo dhaweeyeen ka madax dhaqameed ahaan xilka qaadista ra'iisul wasaaraha saad u aragta aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa mudane khayfa in xilka laga qaado waxaan qabaa arrintaas baarlamaanka ku kacay in muddo dheer la hoorinayay oo ka qarsoonayd ummadda Soomaaliyeed awood fiican oo madaxweynuhu madax banaani uu siiyay inuu ku talax tagay oo laga waayay inuu maamulo soona diyaariyo sanad laba sano ka hor systemka hadda la rabo oo one man one vote ah inuu arrintaa ku guuldarraystay lowlaa dawladda kalena la qabto laakiin isagu ahaa cidda laga sugaayay inuu barnaamijkaa la diyaariyo tirkoobyadii asxaabtii in barnaamijkoodan la isku dubarido oo ay maanta aan loo baahdeen in muddo la kordhiyo ama haddii bay ku runyahay ra'iisul wasaare kale la magacaabo noqon lahayd in loo dareero doorasho walowlaa in ay jiraan amniga iyo dhaqaalaha iyo waxyaabo badan oo mushaakila oo weli xalilaad u baahan isna arrimahaas oo dhan buu ku guuldarraysay sida la ajligeed xaq baan u arkaa in laga qaado mas-uuliyadda uu xilkiisii gudan waayey lowlaa ay wada qabaan aan la qabo arrintaa guul weyn ay ka gaadheen intay dawladda hayeen xagga foreign policy-ga xagga ciidanka xagga haddii bay ku roon yahay meelo fara badan lacagihii deyntii la cafiyey wax badan haddii bay ku roon dalka oo sumcaddiisii sharaftiisii karaamadiisii soo noqotay waxyaabahaas oo dhan guusha wuu la leeyahay madaxweynaha iyo dawladoo dhan buu khayr la wadaaga laakiin waxa uu ka gaabiyey waxay ahayd arrinka hadda Soomaalidu isku haysato waxa kaloo jira in uu aaminsanahay in uu galay arrin khatar ku ah dalka iyo dadka iyo danta guud ee dalkan leeyahay taasoo aan qabo inuu khaymay aaminaadii dawladda oo ahayd in
soomaalidoo dhan lagu haystay loo arkayay in ay dalka iyo dadkaba ay ku yihiin khatar kuwaas heshiis hoosaaneed la galay isaga oo damac siyaasadeed ka wataa arrintaasina waxay ahayd arrin uu ku qaayimay dalka waa tahay iyo ciddii wuxuu dhiibatay waa tahay muqdisho waa caasimadii odayaal shalay ka hadlay oo ku hadlayay afka beelweyn taawiye iyagu waxay sheegeen waxa ka dhacay wadanka waliba xilka qaadista ra'iisul wasaaraha inay aad ugu soo horjeedaan waxay ku sii ladheen wax muddo kordhin la yiraahdaa inaysan yadana aqbalayn odayaashaasi muddadii uu ra'iisul wasaaraha ahaa khayre lama maqal odayaal hadla oo beelweyn taawiye sida waliba odayaasha ugu waaweyn afsida afhayeenka xaad oo kale baaqa odayaasha iyaga maxaa loo qaadan karaa su'aal waxa ku mahmaadaa indha gardar markii ooyaan kuwa garle maxaad u malays waxaan halkaa ka wadaa beelweynta hawiye waxay degan yihiin caasimadii dalka waxay nasiib u yeesheen inay caasimadii iyagu degaankeedii oo majority ka yihiin inay dalka siyaasadiisii dhaqaalihiisii wax walba inay iyagu nasiib u yeesheen kaas oo aan soomaalida kale la qabin waxaan kaloo rabaa inaan caddeeyo safgaraacista maalin kasta ka jirta xamar ee ah haddaan waxaan anagu rabno la yeelin inaan wax ka soconayaa jirin taas waxaan leeyahay u sheegayaa beesha anoo xurmada iyo xushmada soomaalida afka dhaqanka kula hadlaya af qabyaaladeed kula hadlayn arrimaha noocaasi isa soo taraya la dhibsaday hadday soo noqnoqdaan inay mudan tahay caasimadda in gobol kale loo raro sida adduunka oo dhan ka dhacday oo caasimadaha loo kala bedelay dalka for the last 10 years meesha uu ka tegi waayay madaxa raqabada waa xamar maanta oo dowladdii ugu wanaagsanayd aan qabo intii hadda soo martay wixii dowladdii maxaad barre ka dambeysay oo dhaqaalihii iyo amnigii iyo noloshii wax walbii ay soo kacday inay mar labaad safgaraacis iyo ay ku hadlaan iyagoo waliba dhaqan iyo odayaal iyo aqoon-yahan ay meel la soo saftaan arrintaas arrin qalada wax la qaadan karona maaha waxaana u sheegayaa inay arrinku aanay sidaas si ka duwan noqon doonto oo aanay ku khasbanayn soomaalidu xamar inay caasimad sii ahaato lowlaa aan arkayay oo beelweynka murugsade aan mahad gaar u celinayo odayaal iyo aqoon-yahan caawa hadlayay ay aad u soo dhaweeyeen iyagoo yiri one man one vote baan rabnaa madaxweynuhuna wax qalada kuma kacayn ra'iisul wasaaruhuna si hufan buu xilka uga digay arrintaas way ku mahadsan yihiin laakiin odayaashii maalintii hore hadlayay dhaaranayay hanjabayay waxaan u sheegayaa inaan lagu khasbanayn xamar soomaalidu kuma khasbana xamar waa tahay iyada muddo kordhinta dadku siyaabo badan bay uga hadlayaan haddii muddo kordhini soo gasho dadka qayr waxay leeyihiin way ka dayranaya waxay leeyihiin waddanku xaalad adag buu gelaya adigu muddo kordhin xukuumaddu samayso sidee baad u aragtaa de haddii la indhaha la isqabto de iyadu waa si kale laakiin dalka marka la yidhaahdo one man one vote iyo doorasho xor iyo xalaala oo qof iyo cod ah baa laga qabanayaa oo aan wax diyaarsani jirin qof kastaa garan karaa oon xitaa siyaasadda ku jirin ama majuwa ahayn oo qof weynba ahayn baa garan kara inaanay muddada munaasib ku ahayn one man one vote oo waqtiga in la siiyo dowladdan maadaama ay wax badan oo guura a gaadhay oo soomaalida ay aanu qirayno inay dowladdani guul badan gaadhay lama oran karo 100% sidii la rabay ma aha laakiin waayahay garaadeen adigu waxaad ka mid tahay simada gobolka Sanaag gobolkaasi iyo gobolada Sool Sanaag iyo Caynba
markaan isku guud ahaanba gobolladaba isku dhufto waxay ka mid yihiin meelaha xukuumaddan haddeer joogtaa aysan wax waxqabad ah wax siyaasada ka yeelan haddana dadkeedii oo aad ugu horeysaan dadkii madax dhaqameedkii xukuumaddii si aad iyo aad u ayidsantihiin oo taageersantihiin xaggee iska qaban la'a wallahi waa su-aal aada loogu baahnaa nasiib darro weyn weeye oo goboladan haysata waxaan rabaa halkan inaan fariin strong message u mariyo mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo horta siyaasadda ninka leadershipka waxa ka ah inuu go-aan qaadasho leeyahay kalsoonina leeyahay marka waxaan rabaa inaan u sheego laba xaalo waxaan qabaa dhibtaa haddan jirtaa madaxweynaha iyo mashaakilka hadda dawladda haystaa inay dawladda laftirkeedu abuurtay baan qabaa taasoo ah inay mar walba cidda cadowga ku ah isbaarada ku ah soomaalida soomaalinimada kasoo horjeeda dawladnimada kasoo horjeeda in soomaaliya mar labaad cagaheeda dhulka la hesho kasoo horjeeda inay dawladdu naaxinayso inay dawladdu wax ka dhegaysanayso inay u jajabantahay flexible u tahay taasoo iyada ah safety mar walba ku dhacaysa meesha dulmina waa ku jiraa oo ilaahay dee caadil weeye dadkii iyo dalkii u heelanaa ee dawladdan u heelanaa ee xaq u lahaa ee xaquuq u lahaa inay maamul goboleed helaan inay ka yimaadaba cagta ka saaro lowlaa oo weliba kii daarood uu intuu ka gabado yidhaahdo daarood baa wax u qabanaysaa daaroodku soomaalida kale ka mid yihiin madaxweyneha waxaan u sheegayaa daaroodku soomaalida kale xaquuqda ay leeyihiin bay leeyihin ma aha in ninka daarooda ee kursiga soo fuula inuu gabado oo si miskiinnima u gabado oo in wax loo qabto gobolladii dadka magacaa sheegtaa inaan waxbaba loo qaban taas way ka jirtaa oo waxaaba ka mid ah hadda gobolka madaxweynuhu kasoo jeedo oo baaba'sanba oo aan dawladdan iyo tii ka horreysay iyo tii ka cidibo wax u qaban waxaan qabaa arrintaas maamulkan beesha maxamuud harti iyo siciid harti ee dhubaantii warsangeli sool iyo sanaag yacayn haddii ay sii daayaan in labadan maamul dhowaan gobolada sanaag iyo cayn buuhoodle iyo deegaamo kamid ah gobolka sanaag sida hadaftimo oo kale waxaa laga furay xafiisyo dawladda federaalka soomaaliya nabad iyo nolol xisbiga nabad iyo nolol waxaad ka mid ahayd madax dhaqameedkii deegaamadaasi ka furay xafiisyada iyaga xagge marayaan arrinkaas waxa weeyaan waxaa ka jira gaabis weyn baa ka jira waan xagga iyaga ahayn xagga dawladda ah inay dagaal ka furaysatay arrimaha aan sheegayo oo khayre hoosta dhigay iska indhatiray ee diiday shacbiyadii inuu niyad jabiyo bulshada u heelan weliba xisbiga nabad iyo nolol iyo dawladda waxqabadkeeda ee furay xafiisyadii oo islaaqaan baanu ku furnay dhaqaalaha ayagii baanu gelinay juhdi badan baanu gelinay khatar badan iyo dhib fara badan baanu u marnay waxaa moodaa dawladda dhexdeeda in isbaarooyin jiraan I don't know melig waxa looga jeedo in aan dadka bulshada u heelan inay dawladda wax la qabato isxilqaanka wax ugula qabato sida xafiisyada aanu furnay oo kale in layska indhatirayo dawladda dhexdeedana barnaamijkaas ka jiro ma garanayo waxay ku dhacday in dawladdu indhaheeda ay u jeediso dadka dawladda labada awood haysta ay ku mashquusho nimankan soomaalidu hadda bahalaha ah ee arkaan nin walba inuu doonayo dhaqaale iyo wuxuu isagu jeebkiisa ku dal iyo dad midna danta u hayn dadkii xalaasha ahaa ee aan ka mid ahaa xafiiskan aan ka furay xafiiska guud ee federaalka
gobolka Sanaag xidhiidhka guud gobolka Sanaag iyo dowladda federaalka isla markaana aan furay xaruntii guud ee xisbiga nabad iyo nolol taas oo aan aniga dhaqaalahayga iyo juhdigayga iyo imkaaniyaadkayga capacity ku waday weliba jawaab cad dowladda laga hayn arrintaas dhaliil weyn bay ku tahay nabar bay ku tahay boog bay ku tahay waxa ila mida boogod waxa ila mida meelo badan oo kale oo aan macnaha dowladdu la rabay inay u deganuglaato oo u soo degdegto oo barnaamijkaas aad u suurageliso laanno dalka iyo dadka waa anfacaya gaar ahaan iyaga nimanka siyaasiyiinta ee kuraasta hadda jooga sida mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waa dhulkii looga shaqayn lahaa inay dhulkii looga shaqayn lahaa inay wanaajistaan oo dadkii la xidhiidhaan oo dhaqaale ku dirsadaan oo haddii bay ku roon yahay waxaasoo dhan baa laga rabay may dhicin welina waanu ka sugaynaa waayo gobolka Sanaag ahaa haddii aan ma aragtay weli warkiisa kusii jirno waxaa jira warar sheegaya in gobolka macdan laga qodayo gaar ahaan dhulka buuraleyda macdantaasi waxaa la sheegaya in maamulka Deni iyo madaxweyne Deni iyo dowladda Imaaraadka oo iskaashanaya ay arrinta fulinaya arrinta iyada maxaa ka jira arrintaas waa arrin jirta hadda ba cid u soo dirsadeen dad ay u soo direen baa jira aan hadda magacaabay oo barnaamijka wada marka hore waxaan u sheegayaa dadka ashqaasta oo shakhsiyada ah mantaqadan magaca maxamuud harti baa leh macnaha beel gaari kama tashan karto qoys kama tashan karo jufi kama tashan karto magaca maxamuud harti baa go'aan ka qaadan kara macdanta iyo khayraadka dalka waxaana uga sii mudan dowladda haatan jirta federaalka Soomaaliya ee go'aan qaadashada waxyaabaha noocaas iyo khayraadka dalka ku shaqo leh arrintaasi dembi tahay marnana aanan ogolaanayn in dalkayga la fogto hore ay u fogteen dhibo fara badan ka dhaceen laysku laayay haddana midtii ka xun inay ka dhici doonto yaan u sheegayaa mudane Siciid Deni iyo maamulkiisa iyo kuwa kale oo Soomaalidiidka Somaliland inaana dalkayga waxaa ka mid shidan oo kale oo ay barnaamij macdaneed loo wado halkan cilmigu oo kale oo barnaamij macdaneed loo wado labaduna ay kala wataan arrintaasna Imaaraadka iyo kambaniya mafia ay dabada ka riixayaan taasoo rabo dalka in lagu boobo annaga dhulkayaga in lagu boobo annagu iska soo taagan taasi marnaba ma dhaci karto mana dhacayso mana qaadanayno arrintaasna waxay keenaysaa in gacan ka hadal isu bedesho waa tahay ugu dambeyn garaad maxaad ku baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolada SSC waa hore baan dhowr jeer ula hadlay haatan gogashii waxaan leenahay aan fidinay haddaanu beesha maxamuud harti nahay Siciid Harti waa sugaynaa gogol baanu u fidinay anoo ku ka turjumaya magaca beesha maxamuud harti iskuna raacsannahay waxgaradka odayaasha isimada aqoonyahanka qurba joogta aan isku raacsannahay inaanu isu nimaadno walaalahayaga Siciid Harti ayahay ka tashano arrintaas inay ka gaabiyeen beesha Siciid Harti baan u aragnaa waanu u baaqaynaa waxaan leenahay waa idin sugaynaa inaad gogosha kusoo fadhiisataan si aanu aayaheena iyo mustaqbalkeena iyo masiirkeena uga tashano waa tahay aad baad u mahadsantahay garaad in labadan maamul ee laga